wuxuu sallallahu alayhi wasallam daalacday oo la tusay qofka beenlowga sida loo cadaabayo nabigu wixii waa la dheelmiyay waan soconay faatayna ala rajul mustalqin liqafaa waxaan u nimid buu yiri nin yaala dhulka jeega u yaala oo dhinaca jeegada dhulka u yaala oo indhihiisa kor u taagaya u nimid wa idha qaa'ibun alayhi bikallubin min hadid iyo mid kale oo la dul taagan bir mishaar ah oo af badan la dul taagan ayaan u nimid wa idha huwa yati ahad ash-shiqqi wajhi fayusharshiru ila qafaa shidqahu ila qafaa midkaas kala wuxuu cadaabaya midkan dhulka yaala markaasoo halka qowlalada intuu kaga qabta birtaas ayuu jeexaya ila qoorta u geeyo mankharahu ila qafaa halka sankaagu mar labaad intuu ka saaro jeexaya ila qoorta u geeyo wa aynahu ila qafaa ishu ka dilaacinaya jeexaya ila qoortu geynaya dhinaca saddex meelood markuu ka dilaaciyo ayuu dhinaca kale u gadinaya markaasuu saddex kale oo sidii oo kale ka jeexaya markuu dhameeyo midda dambe ayaa dhinacii hore uu raysanaya oo isku dhagaya sidii hore uu noqonaya markaasuu ku soo laabanaya oo waxa weeyaan dilaacinaya markuu dhameeyo dhinacii kale raysanaya markaasuu ku soo laabanaya nabigu wuxuu yiri fayusna'u bihi ila yawm alqiyamah ila qiyamah saasa loo cadaabaya naftu kana dhici mayso cadaabkaasna laga joojin maayo wuxuu nabigu tilmaamay ninkaasi nuuca uu ahaa sida loo cadaabayo fa innahu ar-rajulu yaghdu min baytihi yakdhibu al-kadhiba tablughu al-afaq wa nin gurigiisa ka kalahay saakay oo magaalada aaday oo been sheegay beentina ay jihooyinka gaartay oo ay faaftay ninkaas asaas loo cadaabaya ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam hal been buu sheegay halkii been baa la qaaday jihooyin badan bay kala gaartay cadaabka uu qofkaasi mutaysanaya waa cadaabkaas ilaa qiyaama sidaas loo cadaabaya beenlowgaas ay beentiisu ay faaftay maxaad u malaynaysaa ninka haysta mikrofon iyo idaacad oo halka ka tafawuhayo ku dhawaaqayo beentaasina markiiba kumanaan dhagahooda ay ku dhacayso jihooyin badan oo kala duwan ay gaarayso maxaad u malaynaysaa ahadka noocaas taqullaha wala takdhib ilaahay ka cabso oo habeena sheeg ilaahay ka cabso oo beenta iska ilaali dabeecadaha nabigu ugu dabeecadaha xun oo u nimca wuxuu ugu sii nimca beenta nabigu kaleey salaatu wasalaam عائشة وحيتي رضي الله عنها ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب دبيعات النبي كنم عام أين نشرين بنت دبيعاتها ضدكو أي لين أو حن نبي وحو قلنا بعد دبيعات بنت أيوه نبعا ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة nabigu qof been kuma daalacdo oo kuma ogaado oo markaas qalbigiisa qofkaasi uu ka baxo oo qalbi fiican oo saliim uu ku qaabilo ilaa nabigu uu ogaado inuu ka toobad keeno oo mar hadii nabigu qofka been uu ku daalacdo qofkaasi nabiga agtiisa wax qiimo kama lahayn mana aaminahayn ilaa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ogaado inuu qofkaasi beenti iyada ahayd oo ilaahay uga laabtay oo uu ka toobad keeno beenti iska daayay